xidiga weyn ee reer Argentina Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona u sheegay in uu xil ciyaareedkan ka tagayo naadiga. Lionel Messi oo ay da'diisu tahay 33 jir cimrigiisa ciyaareed oo dhanna ku soo qaatay Barcelona ayaa ku dhawaaqay go'aanka oo aanan marnaba laga filayn wadnahana jaray maamulka iyo taageerayaasha kooxdaasi. Waxa uu kooxda ka codsaday in si dhaqsiyo ah lagu fasaxo oo waliba bilaash ah. Barcelona ayaa kala daahin jawaabteeda waxaana ay si degdeg ah ugu sheegtay Lionel Messi in aanay marnaba u ogolaan doonin in uu si bilaash ah kaga tago kooxda. inkasta oo laacibkani wax badan u soo qabtay haddana Barcelona ayaa ka fikiraysa dhinaca ganacsiga marka ay timaado in uu ka tago xidiga ugu wanaagsan dunida, mana ogolaan karto in uu si bilaash ah ku baxo maadaama la soo dhaafay waqtigii uu heshiiskiisa u ogolaa in uu si bilaash ah ku bixi karo. Barcelona ayaa waxaa 8-2 ku garaacay Bayern Munich oo rubac dhamadkii horyaalka Yurub ku burburisay Champions League 16 bishan aynu ku jirnay August. Messi oo 6 jeer ku guuleystay bilada ciyaaryahanka adduunka ugu wanaagsan ee Ballon d'Or ayaa kulankiisii ugu horeeyay Barcelona u saftay sanadkii markuu ahaa 2004 waxaana uu koobka Champions League ku guuleystay 4 goor. Qandaraaska uu naadiga kula jira ayaa waxa uu ku egyahay dhamaadka 2021 waxaana la filayaa in ay goordhow kulan qaataan maamulka Barcelona. Waxaana jira warar sheegaya in waxa kaliya ee Messi lagu qancin karo ay tahay in madaxweynaha kooxda Jose Maria Bartomeu uu iska casilo, sidoo kalena la qabto doorasho degdeg ah. Balse Messi ayaa u muuqda qof gaaray go'aankiisii ugu dambeeyay ee uu kaga baxayo xindaabka Barcelona isla markaana aan sinaba lagu qancin karin. Kadib markii la baahiyay warka ah in Messi uu ka codsaday in la fasaxo kooxda oo uu ka tago naadiga, ayaa garoonka Nou Camp oo ku yaala magaalada Barcelona ee gobolka Catalonia waxa soo buux dhaafiyay taageerayaasha oo daharaadaya maamulka kooxda iyaga oo taageero u fidinayay laacibkooda ku gaamiray kooxda. Rikooradiisa marka dib loo milicsado waxa uu Barcelona ku soo biiray isaga oo 13 jir ah sanadkii 2000 xilligaasi oo uu ka soo wareegay naadiga Old Boys ee dalka Argentina. tan iyo markaasi waxa uu dhaliyay 637 gool 731 ciyaarood oo uu u saftay Barcelona. Waxa uu kooxda kula guuleystay 34 koob oo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen 10 horyaalka dalkaasi Spain liigaha ah iyo 4 koob oo UEFA Champions League. waxa uu dhaliyay goolashii ugu badnaa ee laga dhaliyo La Liga oo ah 444. waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu bilada badan marka laga hadlayo Ballon d'Or. waxa uu 2012 noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan dhammaan tartamada kubadda cagta ee caalamka isaga oo shabaqa ku hubsaday 79 gool. waa ciyaaryahanka kaliya ee in ka badan 40 gool dhaliyay 10 xilli ciyaareed oo isku xigta. waxa uu haystaa goolasha ugu badan ee hal koox loo dhaliyo ee Champions League waa 115